laakiin dhegayso qisad kale saddex nin baa nebi ciise raacday calayhi salaam siday ula socdeen ayay yimaadeen meel bannaanka uu dahab ku yaallo dhaymanku markaasuu nebi ciise ku yidhi waxaan waa dhayman waa dahab waa jawharad markaasay yidhahdeen noo qaad markaasuu nebi ilaahay soo diray iyo adduunya meel ma wada marta buu ka yidhi markaasay dee annakaa qaadanaynaa dee haddaad qaadataan in raaci maysaan waad iga hadheen ogaada buu yidhi diin iyo adduunya isma raacda buu ka yidhi waa nebi zaahid waa nebi ciise calayhi salaam saddexdii nin way ka hadheen baa la yidhi nebigii ayaan darrada eeg markaasay dahabkii qaateen way la socdeen way la lugeeyeen magaaladii markay u dhowaadeen bay yidhaahdeen haddaan maalin galno waa la naga dhici habeen han ku beegno laakiin waa gaajoonaynaa way tashadeen waxay yidhahdeen laba dahabkaas sii ilaaliso midna magaalada intuu tego cuntahay noo soo qaado yuuna cidna inoo sheegin waa hagaag kolkuu ka dhaqaaqay labadii dahabka ku hadhay ilaa shayddaankiiba dhiigga bini'aadanka dhex socdee ayaa wuxuu yidhi mid walba midka kaluu ku yidhi dahabkan labadeennu buu nugu fiican yahee ninkaa markuu yimaado aniguna waan la hadlay waan jeedin adiguna midida halkaa ka geli maydkiisana bahosha han ku ridno han ku aasno dahabkana labadeennu han kala qaadanno marxaba kiina uu sii socdaa shayddaanka isagana dhiiggiisii ku dhex jiro wuxuu ku yidhi dahabkan adigoonbuu kugu fiican yahee cuntada intaada soo cun ayakana u soo sumee markay dhintana dahabka iska qaado maxaa ka dhacay kuna tahay meeshaas uu yimiday cuntadiibuu u dhigay isagii bay khaarijiyeen cuntadii bay cuneen iyagiina way iskhaarijiyeen nebiyullaahi ciise calayhi salaam ayaa soo maray dahabku halkii yaalla iyo saddexdoodii oo mayda markaasuu xawaariyiintii ku yidhi adduunyadii ubadkaygu sidaas ku galeen eega buu ka yidhi waa kaas halkaas halka laga hagaagaa waa qalbiga halka laga xumaadana waa qalbiga arbaciinka nawawiga jardani raximahullah sharxiisa wuxuu ku sheegay qiso cajiiba xadiiskaas raabica radia allahu canha habeen iyadoo tukanaysa ayuu nin tuuga aqalkeegu u soo dhacay baa la yidhi markaasuu arkay haweenay iska tukanaysa oo aan in yarna aan cabsanayn ma cabsanayso way maqashaa shanqadha inuu tuugo aqalka u soo dhacay way arkaysaa laakiin ma dhaqaaqin meesheediina kamay dhaqaaqin salaadiina kamay bixin waxaan idhi wixii aqalka alaab u taallay alaabba umay ooline wixii yaallay markuu urursaduu yidhi bax iridii uu ka soo galay baa ku noqotay maaragtaana gidaar bay ku noqotay derbi markaasuu yaabay wuu soo noqday haddana wuxuu yidhi halkeed ka soo gashay halkaad ka soo gashay maan albaabka uu furan yahay uu arkaa mar alle markuu albaabka soo gaadhana wuxuu arkaa albaabka u xidhan derbi uu madaxa ku dhiftaa gidaar markaasuu yaabay haddana uu soo noqdo daragshinkii uu dib u qaatay daragsiyoonkii markaasuu halkiibu isleeyahay wata halkaad ka soo gashay furanna ka bax markuu gaarana meesha u xidhan tahayba alaabtii uu sitay oo dhan buu u dhigay baa layidhi ilaa salaadda ay ka baxaysa iyadii uu sugay wuxuu yidhi kolka salaaddii ka baxday buu ku yidhi wixii aan kaa qaato waa aniga kuu dhigay albaabkii halkuu iga xigay ii sheeg buu ka yidhi arbaciinka nawawiga ayuu ku sheegay jardani sharaxaas qisadaas markaasay ku tidhi anigu albaabka ma xidhin albaabka xagga sare laga xidhaa bay tihi xagga sare ma doonaysaa in albaabka lagaa furo haa toobadkeen bay ku tidhi ballanna qaad ilahay inaad u noqonayso oo dembi dambe aad ku dhacayn oo tuugada aad dhaafayso ilaahay u ballan qaad waa iga ballan buuri maanta laga bilaaba inaan toobad keeno hal mar keliya markuu sidaa yidhi tidhi albaabkii waa kaasa ka bax albaabkii buu ka baxay way sujuuddo waxay tidhi yaa rabbi anigu waa kaa qoloftiisii waa soo jeediyey qalbigiisa adigaa ku shaqal ilaahu qalbigiisa soo jeedi bay ku tidhi sidiibu ku toobad keenay laba qiso cajiiba qur-aanka ku taalla labaduba waa ina nuux iyo ina ibraahim qisadii nebi nuux inankiisa markii ummaddiisa la halaagayey waa kii ilaahay ku lahaa doon samayso nuuxow adiga wixii ku raacana doontaa saar ehelkaagana doonta ugu yeer inay fuulaan waa kii nebi nuux inankiisa u yeeray ku yidhi qaala yaa bunaya irkab macna walaa takun maca alkaafiriin qaala yaa bunaya inankaygi yaraayow irkab macnaa nala soo fuul walaa takun maca alkaafiriin kaafiriinta macooga ha noqon buu ka yidhi qaala sa'awi ilaa jabalin
يعصمني من الماء. قال سآوي حتى آبا مؤرن بالليل ilma aabihii u yeedhay ilma waalidkiisu u yeedhay oo markuu u yeedhay aabbo ama hooyo odhan waaya hada calaamatu shaqaawa bay culimmadu leeyihiin waa calaamatu shaqi waa caaq ilmahaas sida u jawaabaa laga garanayaa ina nuux jawaabta uu bixiyey eeg ina ibraahimna jawaabta uu bixiyey u fiirju fakaana min almughraqiin baa ilaahay yidhi iyakoo labadooda hadalka isweydaarsanayaan reerkii mawjadihii duufaanka ayaa dhex maray deedna inankiisi waxaa ilaahay ka yeela kuwii qarriqmay kuwii kana waxaa lagu yidhi inii araa fi lmanaami anii adbaxuka fandur maada taraa waxaan ku manaamay anoo ku biraynaya sida neefka xoolaha loo birayo ee aabba maxay kula tahay buu ka yidhi qaala yaa abati ifcal maa tu'mar satajidunii in shaa allahu min alsaabiriin aabba amarka ilaahay buuxi oo yeel aniga hadday noqotona waxaad heli doontaa inaan ka mid ahay kuwa saabiriinta adkayste labada aabba maaha bay culimmadu leeyihiin maaha labada waalid labada aabba maahan waa labada hooyo ayaa kala duwan ina nuuxna waxaa soo tarbiyadaysay hooyo ilaahay cilaaqa aan la lahayn hooyo nebi nuux aanan rumaysnayn hooyo gaalnimadeeda qarsanaysay oo inankeyga ku lahayd odaygan qaylayo warkiisa ha maqline hor addanahaaga qabso ismaaciilna waxaa soo tarbiyadaysay hooyo tidhi markii cillada lagaga dhaqaaqay tidhi ilaahayna dayici maayo ibraahim oo de iska soco laanna ilmaha baa la yidhi inta badan tarbiyadda hooyadaa saamaysa ee tarbiyadda aabbuhu ma saameeyo inta badan ilmuhu ma hooyuu la joogaa mise aabbo midkuu la joogaa hooyuu la joogaa hadday hooyadu hagaagsan tahayna ilmuhu way hagaagayaan hadday dumarku naga baanaadaan ciyaalku way baanaanayaan waayo dugsiga ugu horeeya mujtamacu ka soo baxaa uu wax ka soo barta waa hooyada haddii dugsigaasi uu noo hagaago uu dugsi diin danaynaya u noqdona mujtamac diin danaynaya soo bixi doona hadday malcaamadahaas iyo dugsiga uu naga hallaabo uu naga xumaado ilaahay nagama xumeeye waa haweenkan u jeeday hadday haweenku naga xumaadaan waxaad ogaadaan jiilalka soo socdana way naga qalloocsamayna ogaada marka dumarkeenna xaasaskeenna gabdhaheenna hablaheenna inaan diinta ku tarbiyadaynaa waxay ka dhigan tahay mujtamaca soo socda hagaaggiisii baa ku xidhan gaaladuna laba qolay ku dadaalaan maanta laba qolo dumarka iyo ubadka labadaabay naga soo galaan odayaasha dan uma leh ragga dan uma leh gaaladu labaday ku dadaalayaan maanta waa labadaas waayo jiilkan maanta jooga waxay leeyihiin hayna dhaafaan laakiin jiilalka soo socdaan bedelaynaa bay gaaladu ka fikirayaan inay bedelaan lidalika nebi nuux calayhi salaam islaamtiisu maadaamay gaalad ahayd oo gaalnimada qarsanaysay tarbiyadda inankeyga iyadaa saamaysay ismaaciilna aabbihii kuma agbarbaarin hooyo ku agbarbaaray tarbiyaddii hooyadii baa saamaysay hooyo caynkeeya hooyo ilaahay ku xidhan hooyo cidna markii lagaga dhaqaaqay tidhi ibraahiimo ma amar ilaahayba haa ilaahay nima dayacayo socabay ku tidhi ilaahay waa ilaaliya ibraahim inankiisii ma gowricin ibn qayim aljawsi raximah llah wuxuu yidhi maqsuudku ma ahayn ilmaha gowrac maqsuudku wuxuu ahaa jacaylka alla mooyaane jacaylada kaloo dhan qalbigaaga ka sar